الله naxariistee waxaa maanta magaalada Nairobi lagu aasay xildhibaan Mawlid Macaane Maxamuud iyo Faysal Xaaji Cilmi oo ku dhaawacmay qaraxii 40 bishan ka dhacay tiyaatarka magaalada Muqdisho. مسؤولين كثير سن دولة كميل جارك الصومالية يسياسيين عانا يا جوب جوك أها جوبته وكدعي آسكا لبض مرحوم الله نحرسته. مسؤولين تي كسو قيب قشي آسكا يا وحا كمدها علي مهدي محمد بروفيسور علي محمد جيدي عمر عبد الرشيد علي شرماركي محمد عمر حبيب محمد ديري وزير دولها سبورتيغا دولة كميل جارك الصومالية بروفيسور عبد الله الشيخ علي سفيرك دولة كميل جارك الصومالية وفردية دلكن كينيا أمباستور محمد علي نور أمريكا عبد الرحمن عبد الشكور حلبان عشروي مسؤولين كلا وكثير سن دولة كميل جارك الصومالية dhammaan qaybihii bulshada ay ka qayb qaadatay aaska labada marxuum ayaa waxay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo waliba ehelladooda ugu tacsiyadeeyeen geeridii ku timid inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta aad arkaysaan waxaan joogaynaa xildhibaankii Ilaahay ha u naxariistay Mawlid Macaane Maxamuud iyo Faysal Xaaji Cilmi oo xafiiska wasaaradda ka shaqeynayay oo shalay la keenay Nairobi in lagu daaweeyo Ilaahay baa jirtay xalayto ugu dhintay Faysal saakitana waxa geeriyooday Mawlid marka Ilaahay waxa ugu baranay inuu Ilaahay jannada ka waraabiyo in Ilaahay uu dambi dhaafo eheladiisa iyo qaraabadiisa inuu Ilaahay sameeyo ka siiyo yaa urjeena insha Allah aamin iyo Faysal Xaaji Cilmi marka waxaan uga soo tacsiinaya runtii dadka ku yimid la dhinteen laasnin iyo ummadda hadda dhaaca saalka taala insha Allah waxaan rajaynayaa labadan oo dhinta khair in jannada Ilaahay ka waraabiyo ummadii ka dhinteen oo dhan samada iman Allah ka siiyo labada dad waxay ahayn fircoon oo maaragtay ama baarlamaanka xukuumadda dhexdeeda wax qabad fiican leh intii kale oo dhimatayna u tacsiinayna ugu horeeyaan gudoomiyihii sportiga Olombikada Soomaaliyeed iyo gudoomiyihii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo dadkii kale meesha ku geeriyooday aan u tacsiinayna ehelladooda in Ilaahay samir iyo iman ka siiyo kullu nafsin daaqatil mawt inna lillahi wa inna raaji'uun waxa weeye meeshaynu taagannahay waxa meeshaynu ku dambaynayno weeye waxaan hor tacsiyad u direynaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba dil dhibaatada dhacday oo ka dhalatay dadkan xilkaska ahayn aakhirana aan ka fikirayn adduunyada aan ka fikirayn oo goostay dadka muslimiinta ah shiray isugu yimaadeen inay ku dhibaateeyaan kuna laayaan dad kuna dhaawacaanin weli culayskii baan haysta maantana waxaan duugayna waa Mawlid Macaan xildhibaan referee international ah isla markaana nin aad iyo aad u danaynahay sportiga ahaa marka ummadda Soomaaliyeed tacsiibaan u jeedinayaa baarlamaanka Soomaaliyeed iyo bahda Soomaaliyeed bahda sportiga meel ay joogto bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin runtii waa geerin naxdin leh waana u tacsiyadeynaynaa qoyskii ay ka geeriyoodeen labadaba ayagana naxariista jinna Allah ka waraabiyo inta waxaan ka dambaysana adduunyo aakhira wanaagsan labadaba heli maayaan laakiin iyaga gacanka gardarnaa dishay Ilaahay macbuudka ay jannadii ha ka waraabiyo intii ay ka geeriyoodeen iimaanka islaamka Allah geliyo hana sabrana adduunyo sabra loo baahan yahay waa meel loo wada socdo la isaga mahiinli karee wabillahi tawfiiq maanta waxaan halka u nimid tacsiyad Mawlid Macaane iyo Faysal oo ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay tiyaatarka ummadda ee Muqdisho waxaan leenahay Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay jannatul firdaws oo ka waraabiyo reerkii oo ka baxana sabr iyo iimaan Allah ka siiyo xildhibaan Mawlid Macaane Maxamuud waxa uu ku dhashay magaalada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe sanadii 1944 waxaana uu halkaasi ku soo qaatay waxbarashadiisa asaasiga xilli uu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii soo maray Soomaaliya isagoona ifka kaga tagay saddexaas iyo waliba caruur fara badan oo ku kala nool wadamada Kenya Canada Ingiriiska iyo waliba Talyaaniga sida ay sheegeen qaar ka tirsan eheladiisa Maxamed Cusmaan Cumar Xabiib Royal TV Nairobi